shir dhinaca qadka internetka ah ee aalada Zoom-ka una dhaxeeyay mas'uuliyiin ka tirsan Bangiga Adduunka iyo IMF-ta iyo Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa furmay. Shirka ayaa waxaa looga hadlayaa dib u eegis lagu sameynayo wixii ka qabsoomay barnaamijka ECF ee hanaanka deyn cafinta Soomaaliya. Shirka ayaa muddada toddobaadka ah ee uu socdo sidoo kale diiradda lagu saarayaa saameynta COVID-19 ee dhaqaalaha Soomaaliya iyo qaabkii wax looga qaban lahaa. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa sheegay in ay si wadajir ah dib ugu eegayaan dhamaystirka shuruudihii ugu dambeeyay ee hanaanka deyn cafinta. Tani waa fursad weyn oo inoo ogolaanaysa in aan adduunka kala doodno fursadaha horumarineed ee Soomaaliya, ayuu yiri Wasiir Cabdiraxmaan Beele. Soomaaliya ayaa 4 sano ee la soo dhaafay waxa ay dadaal ugu jirtay sidii looga cafin lahaa deymaha ay ku leeyihiin qaar ka mid ah dalalka caalamka, iyada oo dowladaha qaarkood cafiyeen kuwana ay dhawaan ka cafin doonaan. Caaisha Nur Aadan, Hanti TV, Muqdisho.